السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو waxaan ku eegaynaa falanqaynta weekend inagoo ka bilaabanaa Diego Soy weekii hore halkaasi maraysay waxaan yidhi kani waxa weeyaan waa impulse waa correction baa lasoo hirgeli karaa haddana impulse kale ayaa iman kara ugu yaraan halkaas ayaa la tegi karaa kadibna waxaan rajeynayaa baan yidhi in lasoo dhaco sidaan yidhi waa sidan waa tan halkaasina la marayay waxaan yidhi correction yar baa lasoo geli karaa haddii aad janiska impulsiga kor ilaa halkaa la aadaya haddii uu fursad ku siiso waa ka faa'iidaysan kartaa haddii kalena down trainkan dheer ayaa soo raacin kartaa marka badanka sidii ay samaysay waxay samaysay janiskii abtrainka ahaa waa uu bixiyey suuqani halkii aan doonayeyna waa u gaadhay imka waxaa dhacday halkiina laga soo reebti karayo marka imka maxaan ka rajeynayaa suuqan waxaan ka rajeynayaa inuu hoostaasi aado impulse correction impulse kale haddana correction haddana impulse marka janis kastoo down traina waad ka faa'iidaysan kartaa janis kastoo down traina waad ka faa'iidaysan kartaa marka weekkan waxaan rajeynayaa inay Diego Soydu hoos u sii socoto ilaa ugu yaraan halkaas ayaa la tegaya ugu yaraan minimum halkaas ayaa la tegaya marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatid janiska down trainka ee soo socda Euro USD weekii hore waxaa yidhi halkaasii maraysay in yar correction inta lasoo galo ayaa abtrain la aadi doonaa marka weekii hore halkaasay maraysay correctionkii inta sidaa loo yargalay correction yar la yargalay ayaa lasoo dhacay marka bahalka waxaa dhahday halkii aan doonayeyna way timi marka imka waxaan ka rajeynayaa suuqan inuu kor usii socdo imka wuxuu sameeyey impulse correction ama halkiisii hoose inta lagu soo noqdo la sameeyey haddana impulse correction impulse correction impulse marka correctionkan waa ka faa'iidaysan kartaa si aad impulsigaas u raacdid impulsigaas ka faa'iidaysan kartaa marka correctionkan ahmiyadda saar marka janis kastoo abtraina waad kasii faa'iidaysan kartaa ugu yaraan halkaa waa la jebin karaa ugu yaraan halkaa waa la jebin karaa marka waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatid Euro USD janis aad u fiican baa kasoo socda oo baya GBP USD weekii hore waxaa yidhi in yar inta lasoo dhaco ayaa kor la aadi doonaa marka halkaas ay maraysay meelahaas ay maraysay waxay samaysay in yar correction yar waa lasoo dhacay kadibna wataa kor la aaday kadibna dib baa halkii hoose loogu soo noqday marka imka waxaan ka rajeynayaa inay samaysay impulse correction haddana impulse kale correction impulse kale correction impulse marka janis kastoo abtraina GU waan ka faa'iidaysanayaa janis kastoo abtraina GU waan ka faa'iidaysanayaa haddii welibana halkaa toos usii jebiso waxa weeyaan toos ay abtrain u noqonaysaa marka GBP USD janiskan ka sugayaa waxa weeyaan waa abtrain NZD USD NZD waxay ku jirtaa down trainkaas abtrainka intay abtrainka dheer bilowday ay haddana dib ay usoo noqotay marka weli iyadu waa down train ilaa ay halkaa la jabiyo mooyaane weli waa down train waxaan ka sugaya iyada in correction yar la yar galo hoos loo soo dhaco kadibna correction kale laga yaabo lasoo dhaco kadibna abtrainka ka hor intaanu bilaabmin marka yar waxay ku jirtaa meel yar waxay ku jirtaa rankina marka haddii aad down trainka yar janis iyo kusiga ka faa'iidaysan kartid waa axsan haddii kalena janisyada dhaadheer ee soo socda abtrainka waad isku diyaarin kartaa marka weekkan anigu NZD USD ma trade garayn doono laakiin haddii uu shuruudaha ku waafaqo janiska yar adoonka waa ka faa'iidaysan kartaa AUD USD weekii hore waxaa yidhi halkaas ay maraysay waxaan yidhi correction yar baa lasoo aadaya in yar baa lasoo dhacaya kadibna janis kastoo baya waan ka faa'iidaysanayaa taas waxaan idhi ilaa halka AUD USD way jebin kartaa marka janis kastoo baya waan ka faa'iidaysanayaa iyadu waxay samaysay correctionkii yaraa waa kan halkan bay maraysay intii halkaa ku yara rafatay ayay samaysay correction kale impulse hoos ku ah correction marka kani wuxuu yahay correctionka impulsigiisii koowaad kana waxa weeyaan impulsigiisii labaad marka waxaan rajeynayaa laga yaabaa in yar intay sidaa soo tiraahda ay soo dhacdo wax dhici karta in yar correction yar inta lasoo yargalo lasoo dhaco kadibna kor la aado marka janis kastoo baya waan ka faa'iidaysanaya ugu yaraan halkii waa la jebin karaa halkaa waa la jebin karaa ugu badnaana ilaa halkaas horta waa la gaari karaa marka
janiska aan anigu target garaynaya rajeynaya waxa weeyaan uptrainkaas. Haddii aad uptrainka uu janiskaa siiyo waa good, haddii kalena sug inta uu janis ku siinayo, marnaba ha isku tuurin. USD CHF weekii hore meelahan ayaa la marayay, meelahaas ayaa la marayay. Waxaan idhi correction inta sida loo soo galo ayaa kor la aadayaa. Marka sidii waxay samaysay correction yar, kadibna impulsigaas yan ayay samaysay. Marka durtaba way soo kala wareegtay. Marka imika weekend waxaan ka sugayaa kani waa impulsi, correction waa impulsi kale, correction kale, impulsi, correction kale, impulsi. Marka janis kastoo dhowna waad ka faa'iideysan kartaa. Marka USD CHF waxay u muuqataa inay weli hoos u sii soconayso, aanan weli uptrainkii bilaaban. Marka janis kastoo dhown tarayna waad ka faa'iideysan kartaa. USD Japai weekii hore meelahaas ay maraysay. Waxaan idhi inta kor sidaa loo aado ilaa meelaha laga yaabaa in la tago, kadibna lasoo dhaco. Marka sidii way aaday oo way samaysay intay impulsi samaysay correction, haddana impulsi kale ay dib usoo bilowday. Impulsi kale ay soo samaysay, way soo jabisay higher lowgeeni. Imika waxaan ka sugayaa inay correctionkan lagu jira ay dhamaysto, kadibna janis kastoo dhowna waa weekend lacagahan xiiseynaya weeyaan USD CHF. janis kastoo dhown tarayna waan ka faa'iideysanaya USD CHF ilaa ugu yaraan halkii baa la tegayaa. Ugu yaraan halkan waa la jebinayaa ilaa halkaasna waa la tegi karaa. Marka janis kastoo dhown tarayna oo aad aragtid ka faa'iideyso. Janis kastoo dhown tarayna oo sela USD CHF waa lacag aad u fiican, waad ka faa'iideysan kartaa. Wataa USD CHF weekii hore halkii maraysay. Waxaan idhi in yar inta kor la aado impulsi correction impulsi ayaa lasoo dhici karaa. Marka sidii ayay samaysay, halkaas ayay maraysay. Waxay samaysay impulsi correction yar, impulsi kale. Marka imika waxaan ka rajeynayaa impulsi kani weeyaan, kanna waa correction yar, impulsi kale, correction yar oo kale, impulsi kale, correction yar oo kale, impulsi kale. Marka janis kastoo dhown tarayna haddii uu ku siiyo USD CHF waad ka faa'iideysan kartaa. Marka badanka USD CHF waxay la socotaa DXY-da kolba janisku siduu yahay. Haddii DXY-du dhown taray noqoto, iyaduna badanka dhown bay noqotaa. Dahabka haddaan sidaa u eegno, dahabka weekii hore waxaan idhi in yar correction inta lasoo galo hoos loo soo dhici doonaa kahor intaana uptrain la aadin. Badanka sidii way samaysay, meelahaas ay maraysay. Waxay samaysay correction yar oo kale, waa lasoo dhacay, haddana correction yar oo kale waa lasoo dhacay. Imika waxay samaynaysaa haddana waxaan oo dhan waxa weeyaan correction yar oo kale waa lasoo dhacaya. Marka janis kastoo dhown tarayna dahabka waad ka faa'iideysan kartaa. Ugu yaraana halkaas waa la iman karaa. Marka janisyada dhown taraynka hadduu janiskaas iyo fursad waad geli kartaa, haddii kalena waad sugi kartaa. Marka intaasan ku gabagabaynayaa falanqaynta weekend. Haddii aad video ka heshay fadlan like saar. Haddii aan ugu cusubtayna fadlan channelka subscribe saar. Haddii aad wax su'aalo haysidna commentiga noogu soo qor.